Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay shirkan u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka iyo gobolka Banaadir ka oo diiradda lagu saaray hirgelinta tubta siyaasadda loo dhan yahay lagu gaarayo doorashooyinka 2020 iyo qaybsiga kheyraadka badda Soomaaliya. Shirka ayaa intii uu socday waxaa aad looga dooday daadejinta hanaanka federaalka, dhamaystirka dastuurka ku-meel gaarka ee dalka iyo siyaasadda doorashooyinka kuwaasoo dhammaan suurtagelin doona in dalka ay ka qabsoonto doorasho xor ah sanadka 2020. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo warbaahinta qaranka la hadlay shirka kadib ayaa xusay in shirkani muhiim u ah dalka oo higsanaya doorashooyin xor ah sanadka 2020. tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaa laga hadlay tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ansixiyay golaha wasiiradu oo ka kooban dhamaystirka geedi socodka dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka, dhamaystirka hanaanka federaalka, dib u eegista dastuurka iyo in la dhamaystiro dhammaan waxyaabaha kale hay'adaha kale ee kaabaya in sanadka 2021 ay qabsoomaan dalka ka qabsoomaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah. waxaa kaloo lagaga hadlay oo la soo jeediyay oo guddiga doorashooyinka qaranka ay soo jeediyeen qorshaha ku talagalka ah ee ay lahaayeen ku saabsan sida ay u qaban karaan doorashooyinka, diiwaangelinta loo baahan yahay in codbixiyaasha la diiwaangeliyo iyo waxyaabaha kale ee soo raaca. waxaa kaloo lagaga hadlay geedi socodka dib u habeynta dastuurka oo wasiirka dastuurka soo jeediyay. waxaa kaloo lagaga hadlay oo ay soo jeediyeen wasiirka kalluumaysigu wadaagga kheyraadka maadaama nidaam federaal aan qaadanay kheyraadka kalluunka ee dalka ku duugan xeebta dheer ee Soomaaliyeed ee 3300 iyo dheeraadka kiiloomitir ah sidii loo qaybsan lahaa dakhliga ka soo baxa, sidii loo wadaagi lahaa iyadoo saansaantii loo mari lahaa iyo qalfoofkiisii uu wasiirku soo jeediyay lagana heshiiyey in heshiis dhaqso ah laga gaadho oo laga galo wadaagista kheyraadka kalluumaysiga ee baddeena ku duugan. shirkaasi guul buu ku soo dhamaaday. berrito waa maalintii saddexaad oo ay gabagabada tahay oo waxyaabihii soo qabsoomay iyo halkay marayaan iyo warmurtiyeedka uu soo bixi doono waa guul Soomaali u soo wada hooyatay. si fiican baanu shirkaasi noogu dhacay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixinaysa dhaqangelinta siyaasadda loo dhan yahay oo lagu xoojinayo wada shaqaynta hay'adaha dastuuriga ee qaranka iyo dowladaha xubnaha ka ah, taasoo suurtagelinaysa in si wada jira looga wada shaqeeyo higsiga doorashooyinka iyo qaybsiga kheyraadka dalka maadaama dalkeenu qaatay hanaan federaal ah. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.